qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan barwaaqo gaarne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز الكسو دوالة مقالة تحناها ها يعني هل كان كسو بهين جرني كسو بسنة مادة إنجليسكا جرهان جريد كسديدات ولبا وحاكو جرنا يونتكي لحادي ها what's your job muuqaal kan wuxuu ku saabsan yahay exercise labaad ee ku qoran page 89 daawade haddii ay tamar kugu horeysay soo booqato channelka waxa ka dalbanaa inaad nagu soo biirto oo subscribe inoo saarto haddii saa hore nagu soo biirtayna waxa ka codsanaynaa inaad muuqaalka like noo siisid share na gareysid waa maasan tahay haddaba aan bilaabano muuqaalkeena ama casharkeena caawa soo noqod wanaagsan waa rajaynaa inaan muuqaalka laag noo siisay haddaba gudaha u galno muuqaalkeena ama cashirkeena xilligan titleka su'aalaha wuxuu yahay complete dhamaystir the following waxyaabaha soo socda singular ayaa dhinacaas bidixda ku qoran oo mufrad ah ama keli ah dhinacaas oo midigtan waxaa ku qoran plural oo jamci ah ama wadarta ah number 1 waxaa noo qoran This is a city. Tani waa magaalo. Plural dada maxay noqonaysaa marka? This hadii la badiyo waxay noqonaysaa these. Is hadii la badiyo maxay noqonaysaa are. Waxaan soo baxay these are kuwani waa. This hadii la badiyo waxay noqonaysaa these. Is hadii la badiyo waxay noqonaysaa are. City oo magaalo ah oo hal magaalo ah hadii la badiyo waxay noqonaysaa cities. magaalooyin hal mar marka dad isku aqriin maxay noqonaysaa these are cities kuwaani waa magaalooyin waxay soo dhigi kartaa wayda halkee aaday dabcan hadii ereyga ay u dambayso waydaasna ay ka horeyso shibane wayda waa la tiraa booskeeda waxa lagu bedelaa I kadib waxa lagu daraa es okay su'aasha labaad there is one glass waxa jiro ama ku jiro hal glass dabcan glass laba micno leedahay mar waxa la dhahaa glasska biyaha lagu cabo marna waxa la dhahaa quraarada ama dhalada there is one glass waxa ku jira hal glass ama hal quraarad waxa la rabaa marka in plural laga dhigo waxay noqonaysaa dabcan meesha is hadii la badiyo waxay noqonaysaa are numberka 1 waa la badiyay 1 hadii la badiyo waa 2 3 4 5 and inta doonta wadi kartaa oo dabcan aad 5 iska qaatay there are waxa ku jirta 5 glasses 5 glass ama 5 quraarad marka hadii ereyga ay u dambayso double s yani 2s okay hadii ereyga ay u dambayso 2s ama double s hadii u dambayso oo la rabo in la badiyo waxa lagu daraa es su'aal saddexaad waxa qoran my tooth is bad yani iligeyga wuxuu yahay ama waxaan u sanayaa okay meesha my hadii la badiyo waxay noqonaysaa our my waa keyga badi maxay noqonaysaa our oo keena ah tooth waa hal ilig hadii la badiyo waxay noqonaysaa teeth ilko okay meesha is aan hadii la badiyo waxay noqonaysaa are okay waxay noqonaysaa marka our teeth ilkaheena are bad way xanuunsanayaan ama way xun yihiin numberka afraad ee ku xigo this is a child kani waa canug this is a child kani waa canug this dabcan badi waxay noqonaysaa this is badi waxay noqonaysaa are a child hadii la badi waxay noqonaysaa isa lagu daraa soo maaha maya child marka la badinaayo waxaa lagu daraa ama waxay noqonaysaa
children caruur iska ilaali erayadan s laguma daraayo maxay noqonaysaa these are kuwaani waa children caruur ay noqonaysaa marka numberka shanaad ee ku xigo it's my key waa furahayga it's my key waa furahayga it's haddii la badiyo waxay noqonaysaa it haddii la badiyo waa those okay is meesha ku qarsan dabcan waxaa loo qoray short form hab gaabana loo qoray haddii la badiyo waxay noqonaysaa are those are kuwaasi waa okay my badi waxay noqonaysaa key na badi waxay noqonaysaa keys okay those are kuwaani waa kuwaasi sorry those waa kuwaasi those are kuwaasi waa my haddii la badi waxay noqonaysaa our those are kuwaasi waa our keys furaheena ama furayaasheena those are kuwaasi waa our keys furayaasheena numberka lixaad ku xiga asagana wuxuu yahay dabcan there is one lady waxaa jirto hal marwo lady waxaa la dhahaa marwo waa singular there is one lady waxaa jirta hal marwo plural haddaa ka dhigin maxay noqonaysaa marka there waa there is haddii laga dhigo plural waxay noqonaysaa are there are waxaa jirto meesha one ah haddii plural laga dhigo waxay noqon kartaa maybe two maybe three maybe 100 and etc marka there are waxaa jirto two okay lady samayn meesha hal marwo waa badanaynaa waxaan ka dhigaynaa plural intaan ka dhigin pluralka dabcan lady waxaa u dambayso y dana waxaa ka horeeyo consonant d shibane oo d ah ka horeeyo waxaa la sameeyaa marka y-da booskeed waxaa lagu bedelaa I kadib waxaa lagu diraa is maxay noqonaysaa marka ladies okay there are two ladies waxaa ku jirta laba marwo there are two ladies waxaa ku jirta laba marwo numberka toddobaad this is a mouse kani waa dooli this is a mouse kani waa dooli it's singular waa mufrad ama keli haddii aan ka dhigno plural maxay noqonaysaa this haddii aan badan waxay noqonaysaa this okay kuwaani is haddii aan badan waxay noqonaysaa are a mouse oo hal dooli ah haddii aan badan waxay noqonaysaa mice iska ilaali meeshan iska ilaali this is a mouse kani waa dooli mouse waa hal dooli haddii la badiyo waxay noqonaysaa mice ay noqonaysaa meesha si fiican indhaha ugu badi numberka saddeedaad give me one pen hal qalin biiraysay give me waxaa haysiisaa one pen hal qalin biire waxay noqonaysaa give me c meesha one ah maybe two maybe three maybe four give me c two okay pen waa hal qalin biire haddii la badiyo waxay noqonaysaa pens give me two pens c laba qalin numberka sagaalaad ee ku xigo this man ninkan is sitting here wuxuu fadhiyaa halkan this man ninkan is sitting here halkan ayuu fadhiyaa waxaan ka dhiganaa plural meesha this ah haddii aa badan waxay noqonaysaa this kuwaani man haddii aa badan maxay noqonaysaa okay waxay noqonaysaa mean this kuwaani okay is haddaa badan waa are sitting here halkan ayay fadhiyaan marka man badi waa mean this mean nimankan are sitting here halkan ayay fadhiyaan numberka tobanaad ee u dambeeya wuxuu yahay asagana this is a cup kani waa cup okay this badi wuxuu noqonaa this is badi wuxuu noqonaa are a cup haddaa basidna waa cups these are cups kuwaani waa koobab 10 su'aal ee ku qornaa page 89aad halkaas ay ku soo dhamaadeen waan rajaynaa in la fahmo lana soo xasuustay halkaas ay ku soo gogoweyneena haddii ay tahay markii ugu horeysay soo booqatay channelka waxa ka dalbanaa inaad nagu soo biirto subscribe inoo saartid haddii aad hore nagu soo biirtayna waxa ka dalbanaa inaad muuqaalka like noo saartid share na gareysid waa maasan tahay ramadaan mubaarak assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh